waxaan u malaynayaa shaydaan bay ka ahaadeen intii aan haleelayna waxa weeye wanaagga iyo samaanta aan jeclahay ayaad waxa weeye walaalay boqoradeenna sharafta leh ee karaamaysan ee xurmada iyo wanaagga naga mudan intaas ayaan maaragtay hadal ku soo gabagabeeyey wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wadhantahay ugaas aad baad u mahadsan tahay ugu horreyn hodan cabdiraxmaanna soo qabo hodan هيا ودقة هذا القف إنه دقة may ولا qof baa u قف ما bannaan بنان أوكي Ah, ما هو قرن هذا مو hodan أنا حتى xabshuushay adiguna soo gal abaayo way soo wacaysan calanka qaatumaa u saaran hodan cabdiraxmaan baa ugu qoran ama رويال بقولنا أنا أدري مركا inta قبلها maya anaaba hoos iga dhigay waatan maxamed way oo joog joogtaa u markaa kaadiya marka intaysa gabdha qaatan ii kaadiya بقولنا malbiin سيبا roobley adeer raaligelintaa golojoogga ah cimaamadaa golojoogga ah boqoradeennii loo gafay inaad tahay oo gafka aadan geyn ehelkaagana aan nahay oo aan kaaga soo hoyonnay diyaarna aan u nahay magtaadii inaan bixinno inaad naga guddoontay oo aad naga aqbashay adeeray halkaa inooga sii daa kadibna gabdhaha u sii daa أوكي وما هتسنتين horta waxaan leeyahay maasha allah dadka sharafta leh caawa beejkayga isugu imaaday especially beesha mareexaansade oo walaalaheeya oo wax walba aan isku nahay oo dad soomaaliyeeda oo adeeradeeya oo walaalaheeya oo ilma adeeradeeya waxaan ilaa horta aad baa umahadsantihiin maadaama ay soo booqateen maadaama aad ka maarmi weyseen waxa meesha ka socda inaad ka aamustaan maadaama aad aragteen dhibaatada meesha ka jirta iyo dulmiga iyo akhlaaq xumada maadaama aad garateen inaan ahay gabadhiinni oo la dulminayo waxaan ilaa horta aad baad u mahadsantihiin walaalayaal waxaad tihiin tolkayga waxaad tihiin ehelkayga waxaad tihiin dad soomaaliyeed oon ehelka nahay dhan walba wax xumaana shalana idiinma qabin maantana idiinma qabo waan ogaay wiilkaas iyo laba qof oo la socda inay problem ka wadeen waan ku jiifay waana ku soo jeeday inuu mareexaan waxaan isku raacsanayn ama uusan raalli ka ahayn because mareexaan waa bini aadan oo weliba dad kala duwan different ah mana jiro dad oo macnaha isku wada raacay xumaan ma jiro laakiin dad xumaan sameynaya way jiraan laakiin qabiil dhan ah xumaan isku raacay ama gabar in la dulmiyo isku raacay ama hooyo in la dhabaatay isku raacay ma jirto iska daa nimankiina ragga xataa gabdhihiina raalli ka ahayn soo marka aniga shalana mareexaan waxba dhibaato uma qabin waa marmar waa iska kaftamayay wax waa iska tuutuurinayay waana dareemi kartiin waxaas hooyo dhibaato dareemayso ama dulmi dareemayso saddex qof afar qof oo mareexaana markay aragto inay wax ku wadaan iska tuuranaysaan ahay nacaab niima qabin shalay maantana ma nii qabi berrina ma u malaynaya inaan nii qabi doono mar walba madaxa korkiisa ii saarantiin mar walba nafteeda waxaan isku qanciyaa markay 100 qof oo mareexaan xun tahay 1 milyan oo mareexaan oo fiican inuu niigu jiro 1 milyan oo aqyaara inay niigu jiraan dad badan oo aniga dhibaatada ila dareemo inay niigu jiraan kuwa taleefanka iga soo waco weliba anigoo ina oynayo u maleyn ayaga oynaya jiro rag iyo dumar mareexaan oo isoo raadiya jiro luuqa igala soo hadlay waan dareemi karaa waan ogaay in xaaladan meesha ka socoto aysan wax saxsan ila ahayn waxaan kaloon dareemayay inaadan waxba ka qaban karina ood isku daydeen inaad ka qabataan ood isku daydeen inaad wax hagaajisaan laakiin nasiib xumo ay nii noqon weysay ayadoo qurbihii uu dadka ciilay sida aad shal hadaad hore u sheegteen ninkan dhul mareexan hadduu joogane heerkan muu gaari lahayn hadduu dhul kaleeto joogana heerkan muu gaari lahayn laakiin maanta adduun hormaraa la kala joogaa cunuga adiga dhasha xataa hadduu kugu adkeeyo meel aad ku canaano kartid ama aad wax ku samey kartid lama joogo sidaa daraaddeeda marka mareexaan waxaana cuqdad ugu qaadi karin ama aan niigu qabin xumaan ama aan niigu qaadi karin waxay tahay arrintaas meesha ka jirto inaad xanuunkan iyo waxaan dhan aad ka xuntihiin problemkan socda aad ka xuntihiin aas gabar ahaan aas gabar soomaaliyeed hooyo ahaan bini aadan ahaan tol ahaan intaba inaad ka xuntihiin laakiin aadan waxba ka qaban karin saas daraaddeeda nafteyda mar walba waxaan ku qancin jiray inaad dad wanaagsan tihiin laakiin wax aad maanta samey kartiin aysan jirin gacantiinana aysan wax walba ku jirin qof waalanoon maanta dhakhtar ku jirin aadan adinka qabsan karin aadan xirxiri karin sidaa daraaddeeda nafteyda mar walba waan ku raali gelin jiray hadda kadibna waan ku raali gelinayaa ani mareexaan xumaan uma qabi ma necbani adduunkan u jecelahay waa dad soomaaliyeed oo walaalaheeya dhiiggaas baa naga dhexeeya diintaas baa naga dhexeeya dalkaas baa naga dhexeeya waa dad asalka asal aan isdhalnay waa dad wax naga dhexeeyaan oo berrin ay naga dhexeyn doonaan laga yaabay inay wax badan noo dhiman yihiin waxaa waaye markaad wax la yaabtidne waxaa la isku qanciyaa wax ka daran inay soo socdaanaaba laga yaabaa ilaahay intaasa ku ekeen dhiilaa ani beesha mareexaan sida aanoo soo koobayo
boqortooyadan walaalaheeya mareexaan side ani wax xumaana niima qabi wax aan hadda niigu cafiyana meesha maba taala qalad aa iga gasheen ma jiro wax shaqsi ah iyo laba shaqsi way iska jiraan oo idulmiyey laakiin intiina hadda soo kortay inta hoos iga daawanaysay inta fiican wax dhibaata iima geysanin laakiin dhaqankii iyo damiirkiina iyo dadnimadiina aanay dareensiinayo oo nii diidan saas darteeda waxaa rabtiin inaa aniga igu raaligelisiin i qancisiin madaxa ii salaaxdiin i weynaysiin waa dadnimo iyo damiir adinka idinka imaaday laakiin aniga wax adinka aa ii geysateen ma jiro shaqsiya wax ii geystay iyo laba shaqsi adinkana raalli kama tihin sidaa daraaddeeda waxaan iiga qaatay wanaagga iigu imaadeen raaligelintaa iigu imaadeen ka berri ahaanshaad iigu imaadeen inaadan raalli ka ahaynina waxa socdo sida aad iigu caddayseen inaad ka xun tihiin oodan waxba ka qaban karina sidaad iigu caddayseen inaan gabadhiina ahay sidaad iigu caddayseen inaan dad aan kala maarmin marnaba nahay ani waxaan ii leeyahay waan iiga guddoomay wiilasha walaalaheeya iyo gabdhaha walaalaheeya beesha mareexaan side shalayna xumaan niima qabin maantana niima qabi shaqsi dartiisna ma nii xumaynaye qof mareexaanana aniga dhiiggayga uu ka mid yahay dad soomaaliyeedaa tiin berriyaa isguursan doonaa shalayaa isguursan jirnay suu wiilka walaalkay shaaga qarniyo ka hor maamadii abgaalka aheeda oo reediina dhashalaf ka mid a xaliimo yuusuf cali kubdheer daa'uud rasuuf cali kubdheer kuwo kaloo ka dambeeyaa jiro anigii waa ikanaa kuwo kaloo anigii lamid ahaa jiro berritiyaa laydin guursan doonaad wax guursan doontiin mar walba dad soomaaliyeed oo isku bannaan oo isku dhiiga oo wax isku darsanayaan nahay inta xun ilaahay hanaga haayo iyo dadka dulmiga iyo fadeexada rabaan inay sameeyaan iyo dadka inayna kala geeyaan qulubteena wasaqeeyaan rabaan allah hanaga qabto mareexaanoo ilma adeeryaalo waa mahadsantihiin ugaasyadiinni iyo suldaamadiinni iyo wixiina adinkoodan la socdo iyo shacabkiiniba waxaan ilaahay walaalayaal ilaahay hana ii sharfo ilaahay hana ii wanaajiyo aniga waana iga qabaa gabadhiinaan ahay hooyadiiniyaan ahay walaashiinaan ahay sidaa ii sharafteen ayaad iigu sharfantihiin wallaahi war hal mar xataa isma dhihin mareexaan waa dad xun mareexaan waa saan because